السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qaybtii koobaad maanta waxaan halkan kaga warramaynaa taariikhda iyo sooyaalka qoraalka farta Soomaaliga oo dhammaystiran. Maanta waxaa 250 sano laga joogaa markii ugu horeysay ee uu soo baxay wargeys ku qoran farta Soomaaliga. waxaa sidoo kale maalintaas uu manhajka dalka isku bedelay farta Soomaaliga. taariikhda Soomaaliya waxaa shacabka dib u xasuusinaynaa sooyaalkii taariikhda iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray qoraalka farta Soomaaliga iyo heerka uu maanta taagan yahay. sida ku qoran dastuurka qabyada ah, afka rasmiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa afka Soomaaliga. ma iyo maxaa tiri 250 sano ka hor Soomaaliya ma aysan lahayn far qoran. xilligaas dalku ma lahayn far la qoro. waxaa lagu xiriiri jiray dhanka qoraalka afafka qalaad iyo weliba suugaanta. ummad waliba waxay leedahay hidde iyo dhaqan soo jireena, laakiin waxaa lagu kala horumaraa waa xifdinta hiddahaas iyaga oo qoran. sida dastuurka cusub ku qoran, dawladdu waa inay ururisaa ilaalisaa waxyaabaha taariikhiga ee dalka, iyadoo horumarinayso aqoonta iyo farsamada xilkaas lagu gudan karo. dawladdu waa inay horumariso dhaqamada iyo afguriga dadka laga tiro badan yahay. maanta waxbarashadu waa mid ku baasan guud ahaan dalka. dugsiyo iyo jaamacado ayaa meel walba daadsan, laakiin nasiib darro waxaa wax lagu bartaa luqadda shisheeye sida Ingiriisiga, Carabiga iyo af kale oo aan Soomaaliga ku jirin, iyadoo afka Soomaaliga uu isagu oo hal xiisad ah ku jiro jadwalka waxbarashada iskuulada dalka. xafiisyada dawladda, qoraalada, bandhigyada, xayeysiinta, jagooyinka iyo dhammaan hay'adaha dawliga ah waxaa lagula xiriiraa afafka qalaad, halka afkeenu ku soo ururay ku hadalka oo keliya. 1920 ilaa 1969. haddaba sidee sooyaalka qoraalka farta Soomaaliga ah? 1920 ayay ahayd markii la soo bilaabay hindisaha qorista rasmiga ah ee afka Soomaaliga. ilaa xilligaasna waxaa lagu taamayay in si rasmi ah loo qoro. Cismaan Yuusuf Kendiid oo ka mid ahaa dadkii xukumayay beelaha Soomaalida qaarkood, fadhigiisu ahaa magaalada Habyo, ayaa waxa uu soo saaray far lagu magacaabi jiray Cusmaaniya sanadkii 1922. fartaasi meelo kooban ayay ka shaqaynaysay, mana ahayn mid dalka ku wala baahday 1950 ilaa 1960. waxaa sododooda sidii loo qori lahaa afka Soomaaliga. waxaa jiray loona badnaa rag badan ayaa dadaal sameeyey. waxaa lagu muransanaa ma Carabi mise Laatiin. ragga dadaalka sameeyey waxaa ka mid ahaa Ibrahim Xaashi Maxamuud iyo Xuseen Sheekh Axmed Katare. dhammaan raggaas waxa ay soo saareen qoraallo farta ah intii u dhaxaysay sanadihii 1950 ilaa 1961. Juulay 1961 markii dalku xorriyadda qaatay, waxaa la soo bandhigay dhowr qoraal. waxaa ka mid ahaa farta Shire Jaamac Axmed oo Laatiin ahayd iyo faro kale. tanina waxa ay ka dambaysay markii dawladda xilligaas jirtay ee madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan ay saartay guddi ka soo baarandego qoraalka farta Soomaaliga. guddiga ayaa waxaa xubno ka ahaa dadka kale ah: 1. Muuse Xaaji Ismaaciil Galaal,
oo guddoomiye ka ahaa. 2 yaasiin cusmaan yuusuf oo xubin ka ahaa. 3 maxamuud saalex ladane oo xubin ka ahaa. 4 ibraahim xaashi maxamuud oo xubin ka ahaa. 5 khaliif suudi oo xubin ka ahaa. 6 mustafa sheekh xasan oo xubin ka ahaa. 7 shiro jaamac axmed oo xubin ka ahaa. 8 xuseen sheekh axmed kadare oo xubin ka ahaa. 9 yuusuf maygaag samatar oo xoghayn ahaa. guddigaas hawshoodii waxay ka socon weyday isqabsasho dhexdooda ah maadaama rag iyaga ka mid ah ay doonayeen in fartii ay soo hindhiseen la qaato, sida muuse xaaji ismaaciil galaal oo isagu soo saaray far ku qoray alifbeetada carabiga sanadii 1951. waxaa kaloo guddiga xubin ka ah xuseen sheekh axmed kadare oo far uu leeyahay soo saaray 1952. waxay guddigu ku taliyeen in farta laatiinka la qaato, taasi oo uu soo hindhisay shiro jaamac axmed sanadii 1961. si kastaba ha ahaatee dowladda Soomaaliya ayaa keensatay khubaro ka socda UNESCO si arrinta wax uga qabtaan. taasina ma dhicin in laga midho dhaliyo ee weli waa sii socday isqabqabsigii. markii ay soo ifbaxday in farta laatiinka lagu qoro Soomaaliga, waxaa mudaharaadyo ka dhaceen Soomaaliya oo lagaga soo horjeeday in lagu qoro laatiinka, waxaana dadka laga dhaadhiciyey inay ka soo horjeestaan in lagu qoro laatiinka, taasoo masaajidda laga iclaamiyey in shacabku ka soo horjeestaan. waayo ayay yidhaahdeen laatiin waa laadiin oo macnaheedu yahay farta laatiinta waa diin la'aan, iyada oo loo tiirinayo in farta laatiinku tahay tan waddamada islaamka aan ahayn ay wax ku qoraan. Oktoobar 1969 markii uu dalka la wareegay madaxweyne maxamed siyaad barre, uu dib u soo nooleeyey fikraddii qoraalka farta Soomaaliga. 22 Janwari 1971 waxaa la dhisay guddiga af Soomaaliga. guddigan waxaa dhisay golaha sare ee kacaanka si ay ugu sameeyaan xarfaha kugu habboon ee lagu qorayo Soomaaliga. guddiga waxa uu ka koobnaa 21 qof, xeeldheerayaal afafka ah iyo 2 taliyo. xubnaha guddiga kala ahaa: 1 shariif saalax maxamed cali oo guddoomiye ka ahaa. 2 yaasiin cismaan keenadi. 3 mustafa sheekh xasan. 4 axmed cali abubakar. 5 yuusuf xirsi axmed. 6 muuse xaaji ismaaciil galaal. 7 cabdidaahir afiy. 8 awjaamac cumar ciise. 9 dahabo faarax xasan. 10 cabdulaahi xaaji abubakar. 11 cabdulaahi ardeeye. 12 xasan sheekh muumin. 13 محمد نور عالم. 14 محمد حسن آدم جهير. 15 حرسي مجن عيسى. 16 عمر أو نور. 17 عبد الله حاج محمود. إنسانية. 18 إيكر بنا حداد. 19 عاقل عبد الله. 20 حسين شيخ أحمد كدري. 22 أحمد عرتن حانجي. 22 محمد حاج حسين شيكو حرير. 23 عبد الرحمن نور حرسي. 24 شير الجامع. قديقا وحاولها قدي هوساديو سيدا مد قابلسن قرست قاموس كان تاريخ ده جغرافية ده ساينس ديارنتا
kutubta dugsiga iyo naxwaha. Guddiga af Soomaaliga ayaa farta Roomaanka ama Laatiinka in lagu qoro afka Soomaaliga go'aan ku gaadhay. Sababtu waxay ahayd maadaama makiinadihii xafiisyada yihiin ee taabka lagu qorayay fartaasi Laatiinka ahaayeen. Muddo 22 bilood gudahooda ayaa waxaa lagu diyaariyay buugaagta dugsiga dhexe xarfaha hingaadaha af Soomaaliga oo ka kooban 5 shaqal iyo 21 shibane. Si ka duwan sidii 1961 ma dhicin wax mudaharaadyo ah ama cadaadis ku yimid guddigan si farihii tartamayay midkood loo sooco. Sababtuna waxay ahayd xukunka adkaa ee dawladda xukunkii adkaa ee dawladdii Maxamed Siyaad Barre ayay ahayd. Markii la sameeyay dhammaan waxyaabihii loogu diyaargaroobi lahaa qorista af Soomaaliga ayaa si rasmi ah loo shaaciyay qoraalka farta Soomaaliga sanadii 1972. howlaha la qabtay waxaa ka mid ahaa dejinta naxwaha afka sida magac, fal, falka, magacyo, sifo. sidaas oo ay tahay weli naxwaha iyo ebyidda afka waa mid qabyo ah una baahan hawl badan. waxaana la qoray qaamuus, hase yeeshee markii uu ku dhammaan waayay xilligii loogu talagalay ayaa wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare waxa uu sii wadistii hawsha dhammaystirka qaamuuska u xilsaaray Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo ahaa nin ka tirsan Akaademiyada Fanka iyo Dhaqanka. hase yeeshee waxaa si weyn u caan baxay oo filan qaamuuskii uu qoray Yaasiin Cusmaan oo la soo saaray sanadii 1967. qaraar dowladda Soomaaliya ka soo baxay taariikhdu markay ahayd Janaayo 22 1972 in afka rasmiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya uu yahay afka Soomaaliga ee maxaa tiri. markii fartii la dhammaystiray lana diyaariyay dhammaan agabkii loo baahnaa iyo ay buugaag ahaan lahayd iyo haddii naxwo ahaan lahayd ayaa waxaa loo baahday in dalka iyo dadka lagu baahiyo. waxaana sidaasi ku bilowday ololihii farta Soomaaliga sanadii 1972. ololahaas oo ay dawladdii Siyaad Barre markii dambe ku baahisay dhammaan deegaamada dalka. dadka reer miyiga ama reer guuraaga aad ayay wuxuu u barteen. warbixino ay hay'ado diyaariyeen waxaa lagu sheegay in ololahan uu kor u qaaday aqoonta dadka min 2% ilaa 5%. xilligii ay jirtay dawladdii kacaanka waxaa dugsiga lagu baran jiray farta Soomaaliga dhammaan maadooyinka manhajka ku jiray sida sayniska, xisaabta iyo wax kasta oo kale. sanadii 2012 waxaa dalka Jabuuti lagu qabtay xaflad lagu xusay sanad 40 sano guuradii qoridda afka Soomaaliga. Soomaaliya waxa ay ku jirtay marxaladii ugu xumayd ee xagga midnimada. qowmiyadda Soomaalida ayaa u midowday xuska maalintaas. munaasabadaas waxaa lagu dahrogay qaamuuskii ugu weynaa ee afka Soomaaliga lagu qoro kaas oo fikirkiisu u lahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, isla markaana ay wadajir u diyaariyeen machadka afafka ee Jabuuti iyo naadiga qalinleyda iyo hal abuurka Soomaaliyeed Somali Speaking Being Club. January 2015 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaga oo ka hadlayay xuska 42 guuradii ka soo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga sheegay in laga bilaabo maalintaas ay mamnuuc tahay in far aan
ahayn tan Soomaaliga lagu isticmaalo xafiisyada dawladda haddii aanan markaasi xiriir lala samaynin cid dibadaha ah. February 2015 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa Muqdisho ku dhagax dhigay xarun goboleed lagu horumarinayo luqadda iyo dhaqanka Soomaali weyn. waxaa loogu magac daray Akaademiyadii Goboleedka Farta Soomaaliga. Xasan Sheekh ayaa maalintaas sheegay in arrintaas lagula tartami doono luqadaha caalamka. amarka madaxweynaha ee ahaa in xafiisyada dawladda ay ka shaqeeyaan qoraalka Soomaaliga waxba lagama soo qaadin oo wax walba sidii hore. xafiisyada dawladda inta badan war-saxaafadeedka soo gaaray bulshada Soomaaliya waxa uu ku qoran yahay af Ingiriisi, iyadoo taasi ay jirta iyadoo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu soo saaray amar cusub oo sheegayo in boorarka xayeysiinta ee ku degan gobolka Banaadir loo bedelo farta Soomaaliga. taasina ma fulin. taariikhda Soomaaliya sidee ayay suldanadii Muqdisho u qabjibisay boqorkii Tatarka?